السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين كوين هنا ورسوماليا واسويني لكن إن شاء الله ونسهلي دونا هدو إلهي ما يديهن حالديهن أرتكا ورما كدبكي محانقتين أنا وفي عنها هنا في عندنا رجينا مروى البا إلهي سبحانه وتعالى وحايدن كقبر يا عمر داري عافيمات ما أنتو حربا قصير أو قبرنا أنت كقصو سيدايو إني 8 دقيقة دافتنا مرة أما 6 دقيقة حتى بكوس وحير ومهم horta asxaabay gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato iskaysta dhibaatada haysatana ani maanta qisadana idin sheegaa walaal ilmeyn doontiina aaminsanahay gabdho badan ay u noqon doonto maxay aad wax ay ku cibro qaataan wallahi billahi gabar walba oo waxa ka codsanay qisadan dhageysato waa dhab inay share gareyso si walaasheed hadda ku haminaysa inay waxaan sameeyso ay ugu dhacdo lagteeda ama ay u daawato nin ayaa wuxuu qabay gabar markuu qabay waxay deganayeen dhul baadiye ah dhulka baadiyaha ay degan yihiin xamar aday xamar agtiisa xamardaya waaye meelaha xamar u dhow oo yacni cawska iyo qoryaha laga soo guro waaye gabar iska xaasoo miskiin ay ahayd waxay qabtay 9 caruura markaasna uuray lahayd marka 9kaas caruurta iyo reerkaas oo dhan waxaa laga maareyn jiray sida la ii sheegay muxuu ahaa waxaa laga maareyn jiray noloshooda qoryo iyo coos iyo waxyaabahaas oo kale because family iska reer miyi iska awaayo magaalada adiga way ka baxsan yihiin laakiin magaaladana way u dhow yihiin oo cooska magaalada laga qaado xamara loo iibgeeyaa iyo qoryaha marka maalmaha kamida waxay sameysay ninka wuxuu ku fikiray gabar walaashiis inuu family-ga u keeno oo dhaho maadaama ay xaaskeyga iska wareersan tahay cooska ay subaxii soo gurtaa qoryaha soo gurtaa oo la qaado asagana wuu qaadaa meel ceel ahna shaqo yar uu ka hayaa yacni waardiye camal ah oo dad noloshooda iska daala dhacayaan oo waxba haysanin waaye markii gabar oo eedadiis dhasho uu keenay oo ku dhareerka ina ay caawisaa rabaa maalmaha kamida naagti waxay u hanqaltaagtay inay naagti ninka ka shukaansato maskiinka iyo maskiinta qoryaha guray inay ninka ka shukaansatay ku go'aan ku gaartay markay saas sameysay waxaa dhacday inay ninkii naagti isguursadeen gabadhii iska daala dhacayso maskiin waxba haysan qoryihii cawskii laba reeraha laga dhigay ay noqotay dab holcaayo oo u jeedo in aad isku dhex turto waa laga fiican yahay haddana wixii wayba dhaceen qadar ay bay ku dhaceen in la xumeeyo dib laga xumeeyo ayaa kasii xanuun badan bis gabadhii maskiinta ahayd cunugay meesha ku dhashay tii xaamilada ahayd oo awal 9 ku cunugta cunug 10aad ay dhashay tii kalena cunugay dhashay markay tii kalena cunug dhashay oo adii muddo laga soo wareegsay 2 sano camal nolosha ay sii adkaatay xaaladda ay iska adag tahay maskiintana ay qoryaheeda iska soo guranayso cawska iska soo guranayso oo cawska ay soo gurto ayada inta la kala qaybiyo odagana qaado taasna kis loo geeyay ayadana ay ku qanacsan tahay life-ka ay ku jirto oo gabar iimaan badan iska taa waliba markii horeba la iga sheekay inay gabar wanaagsan oo family-ka u roonay ahayd oo qof boqorada ay Allah u naxariisto way dhimatay gacantoodayna sababsan doontaa inay ku dhimato gabadhaas marka maalin maalmaha kamida naagti kala weynada uur yeelatay ayadoo adi ilaa 7 bil camal xaamile ah tii yareed intay soo baxday waxay soo qaaday bug dhaga ee soo qaadatay way u timid dhagihii bugta markay soo qortay intaysa bugta soo qaadin ka hor maalmaha kamida waxay tagtay aroos iyo mihir isku darsan waxay ka soo qaaday bariis hilib digaag adduun cabitaan way u keentay waxay ku tiri heblaayo maadaama lila ka qabo walaalana ninkaagan ilmahan eedadooda eewlay ahayd hadan eedda labaad ay noqotay gabar iska samir badan waayo oo iska maskiina oo dhib badnayn walacna ay tahay intaan walaca ayna ka soo bixin waxay u keentay bariis hilib markaas waxay ku tiri maanta ninkeyga martiqaad uu qabay dadaan martiqaadaynay way yaabtay waxay dhahday ninka maskiinka oo qoryaha iyo cawska aan la guro oo waxba aan haysan oo wax cawska laga soo gado ee ku filneen nolosheeni waxaana martiqaad intuu ka keenay way iska aamusta iyadoo caloosha ka bugto sida ay sheegtay waaye bis gabadhii qorihii cawskeeda iska sii wadatay nolosheeda iska sii wadatay bariiskeedina way iska cuntay abaaheeley waxay go'aan ku gaartay gabadha masaakiinta inay kala kiciso horta dumaro Allah idin sharfo intii wanaagsan inta kale Allah soo hanuuniyo inta hanuun alla la doonin umada Allah ka qabto sababtoo ay dumarka qaarkiis waa xuush waana doqomo halka la aan ku tilmaami karaa aniga maxaa gabadhan hadaa ninkeeda la guursatay ay baahan tahay ay baahida samrayso ay gurigeeda dhaqanayso maxaad ugu dhuqdhuq leedahay maad reerkaaga ku ekaatid maxaa ka dhuqdhuqsiinaya meeyara ma seertamaan ma laha maqli jiray reerkaaga ma iska joogtid ani wallahi waa la yaab gabdhaha Soomaaliyeed waxa ka qaldan qaarkood gabadhii alxaasil maalinka dambe ayadoo 8 bil camal xaamile ee bug soo qaadatay bug ayaamaha soo baxday dahab ay aragteen ee soo xiratay katiin ifraad adoo dhag markay bugti soo qaadatay ay u soo xiratay ay waxay ku tiraaday heblaaye fiican tahay seetahay xaaladda koran ma hadda marada miska dhigi kari ileen aniga saas inta iskaga dhigtay gabsaarkii oo dhigto soo baneysay alla musiibo ilaahay subxaanahu wa ta'aala hamaad ugu xishootid waxaad sameynaysid
war ani horta naag nin markaa shukaansanaya naag le waxaan ka fikiraa gabadha problemka gabadhaas gurigaas leh aa usoo jiidi doono wallaahi nolosheyda waxaan ka hormarayaa midaas aan problemka ku abuuri doono ani laakiin ma aqaan dhibaatada neesa waxay tahay dhagihii usoo bixisay markay dhagihii usoo bixisay saari u fiirisay waxay dhahdaa abaayo dhagahana ii keenay xaajiga way naxdatii uurka leed waxay dhahdaa abaayo ninkaama dhagahan kuu keenay haa idhahda dhagahan uu ii keenay waa kana kaala arag ay dhahday bis gabadhii way yaabtay iyadoo barartay oo iska murugeysan oo problemsan maalin maalmaha kamid ah haddana markii adii 15 days camal laga soo wareegay ay walaalkeeda ingiriiska joogay la hadashaa la dhahay niyo ilmaha iga soo dilmay been iyo bararaq istaal ala wax ma haystay ee dhahday lacag uu soo dhaa $500 $500 ay ka dhahday waxay $500 intay soo qaaday ee waxay dhahday jeefka adduunka kusoo qadatay ee barlamisa saaxiibta ay dhahday maanta abaaqada ku karayma miskiintu iska baxday aad lagu jiido iska barar oo dahabkii la yaaban mase gurigaaba ka sii daran bisinka roog meel walba ku adduun tiyo iyo wareersan oo yaaban ilkahees dhaafsataa leh xanuun noocaas sujuud dumarka inuu ku dhaco anima aqaan kulli kala misa u fahmay aniga ilkahay jag ku siisatay labada iligtaan koray tan hoose way isdhaafeen alle gabadhii way aamusacalay xal xanuun aamusa ku dhacay kulli waa xanuun naagaha urka la ku dhaco mindhaa barashara ku soo booday isbitaal banaadir la dhigay gabadhii dhiiday iska taalay isbitaal banaadir markii la iska dhigay adii muddo habeenii maalin bis ay ku jirtay maalintii 3-labaadna gabadhii way iska xijaabatay Allah naxariisto way dhimatay markay dhimatay caruurtii yaryarayd ee naagta gabadhii ka dhimatay waxay muteysteen abeesadii hooyadood dishay oo gacanteeda ay ku baxday marka aniga walaalayaal waan ooyay markii la iga sheekay qisadaas waxaan u ooyay in qof bini aadan oo uurkaas inuu adduunka jiro ma aaminsani anina ma sameyn lahayn waxaan sameyn inuu qof sameeyeen ma aaminsani sababtoo ay gabadhan masaakiinta intan oo dhibaato maxay ugu geysanaysaa maxay rabtaa markay dhimatay way faraxday maxay ku faraxday ayada nolosheeda maxay aheeday maxaa u dambeyn doono ayadana okay gabadhii ilmihii yaryar loo keenay mid meelahan waxaa la dhahay ka gubtay isha hoosteeda dhibaatadii intay lafta qodmatay dhaqtar lama geeyay lafta gaartay la dhahay laftii banaanka laga arkay iyadoo banaanka meeshii sujuuca xanuun fara badan haysto aad halkaas gabadhii yareed wajiga uga laqmaday haddana waxaa limid kale cajaradii ka gubtay reerkii way silcisay way kala goysay way baaba'een caruurtii ilaahay amarkiisa way iska koreen muddo 5 sano markii laga soo wareegay waxaa lagu leeyahay naag haddana ayadana ay ilmo badan dhashay 7 ama maxaa la 6 camal wuxuu dhahay ninkii walaalay saan ilmahan mihin isku hayn kartide naaga noo keena gabarna saaciideyso qof walba meeshuu wax ugu furo ratiga loogu furaaya maqla jiray baw dhahay gabar uu keenay gabadhii markuu keenay cunuga ka xanuunsan abaa anaa ku geena dhakhtarka ninkii waxaa la dhahay horta ilaaha nolol qayr qabta siiyay ceelku waardiyeyn jiray ayaa waxaa lagu leeyahay agtiisa sujuuc ceel laga qodamiyaa wax unbaa adigu shaqo unbuu helay ninka u kala kacday makiinad bulkeetu samaystay alxamdulillah uu ka baxay sheekadii uu ka booday ilaahay irsaaq buu siiyay naagtii naag kala loo keenay waana laga daba guursaday waxaa la maalmaha kamid ah waxaa la heblaayay ninkaagi naag uu qabaa ma ogtahay mooye ma dhici karto ninkayga naag soo qabi karaa anaa walaalay ma yara oo ugu aheed suuqa gabadha miskiinta dishay oo dhimatay oo adu wax baa lagu yiri ma dhici kartay dhado waayahay naagtii halkaas degantaa lagu dheeway u tagtay xal naagta tuuriyeed sododeedina gabadha hooyadeedina la degantahay bes telefoon ay ka wacay waran ninka naagtaana tuuriyeynaysa dhaw imaadee taayarka gaariga inuu saaro waxay raawaan markaasna lacag uu haystaa ma sha Allah oo kala kacday marka horta intaas aan uga baxo qisadaas gabadha walaasheena gacanteeda gabadha ku baxday ilmihiina ay saxariirsatay walaalay gabar Soomaaliyeed ay danta leedahay maxay tahay hadaa qadarkii dhacay oo reerkii soo dhax gashay oo Ilaahay ku keenay oo wax qaldan markii horeba aad sameysay yaa maxaa nolosha qof binaadan u galaafanaysaa maxaad la guureynaysaa maxaad habeenkii la dheelmanaysaa subaxdii maxaad aroortii la kala haysaa maxaa ku haysta gurigii iyo reerkii aad soo xaday ku ekawday oo iska hayso damiir la'aani waa tii awal nin baahan iyo reer baahan iyo reer coos gurta kuu geysay oo ninkii uga qaadatay nahlaay inaad tahay mar hore aad lagu ogaayay haddana sababta aad u daba taagantaa maxay tahay war ani qisadan wallahi billahi si fiican xataa nigagama sheekeyn karay because caloosha ay horeysa hadda naagu isla fiican tahay naagtii waan dilay qabababa ay leedahay horta qisadaanayti asxaabay saasay ku dhacday gabadhaasna maskiintaana gabadhaasi gacanteeda sababsatay dumarka Soomaaliyeedna waxaa uga digaan waxaan inay sameeyaan mar dambo tii samaysan ilaahay toobad u doonato gabadhaasna ay dhiigeedii magteeda iska bixiso because aakhir waa loo haystaa ayada gacanteeda ku dhimatay marka walaalayaal qisooyin kale oo fara badan aruuriyay intaan idinka maqnaa idin hayaa waan idin soo doonayaa insha Allah barnaamijkaasna inta ku fakaraysaa ka fiijigno oo inta ku fakaraysaa ka fiijigno 20 jir duurkiisa booda ay heli kartaa oo freedom oo xor ah maxaa nafsi qorta ku galiyay maxaa ku kadeeday
عادي اسكدق ولا معاني وحر او نظيف اسكرات هبينك تون صبح ليه شيء اداك وطالع بلا نفس اسكن لو غاجي نفس اسكو درسانين والله بالله وحان الله